xisbiga mucaaradka wadani ayaa maanta isu soo bax balaaran ka sameeyay gudaha magaalada Berbera iyo deegaanada kale hoos yimaada gobolka Saax kadib markay isugu soo baxeen kumanaan taageerayaal ku lebisan calanka astaanta oo xisbiga mucaaradka wadani oo aad ku arkaysay jidadka waaweyn ee gudaha magaalada Berbera iyagoo isticmaalaya gaadiid iyo lugba intaasi kadib waxay isugu yimaadeen goob fagaara oo ay kala hadleen mas'uuliyiin tiro badan oo ka mid ahaayeen xildhibaan Cabdiqaadir Jirde Cabdalla Maxamed Alaba Cabdalla Sandeere Ahmed Xasan Leke iyo Saada Jaamacadan waxayna u dhacday sida tan wuxuu idinka ballan qaaday inuu badana macaanayn doono muxuu ku xigsiiyey Berbera wuu liqay Berberi waxay noqotay hal waraaba dilay oo haddana wali xalaaleeyay ayay ka dhigeen Berbera waynu soo celinaynaa saaxil waynu u hiilinaynaa waxay ahaan jirtay baynu ka dhigaynaa waxa la idinka doonayaa in idinkuna isu hiilisaan hiishada golaa lagu dheelayaa shacbigu ka yahay maxkamad kuusha iyaga qira waa cadayseen waa ismuujiseen Berberi inay isbedel u baahan tahay waxaan leeyahay saaxil ha noolaato maalintan idinka tagana waan garanayaa maantana waan garanayaa 20 cisho oo iyaynoo hadhay sabir badan baa leediin rag adkaystabaatiin dadku wuu adkaystaa in yar bay naga hadhay waxaan leenahay fartiinaasi sida maanta u soo baxdeen maalinta dambana sidaa u soo baxa soo caynkaa iskuma ogin soilow codkiinna iyo fartiinna iyo muruqiinna iyo maalkiinna waxaynu la barbaar istaagnaa xusbiga wadani ee dalkan iyo dadka ma badbaadin kara ololaha doorashooyinka madaxweyne ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo galay maalintii saddexaad ayaan haba yaraatee laga dareemin deegaanada gobolka Saaxil barnaamijkii wacyigelineed ee ay qaabilsanayeen Komishanka Qaranka Soomaaliland Cabdirashiid Mubarak Cabdi Cabdirashiid Sool telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Berbera